saaka warqabtaan maanta oo ahayd in waxa loo ballansanaa Allah baarlamaanka fadhigii uu baaqday waxa sababeen waa dareemi kartaan xildhibaanada badankooda waxay jiraan xaflad Sheekh Shariif oo lagu furaayo xisbigiisa ilaahay idinku dhaarshay annagu waxaan lacag u qaadanaa waxa waa shaqadeena lacag aan u qaadanaa dadka maanta ka maqash lacagta ay qaadanayaan xaraan miya ama xalaal ay maxal lahay xalaal waa anu waxaan dhihi lahaa xaraan waa waxa waa dan oo waxay u maqan yihiin oo gaar ah shaqadii loo igmadana tan waay saa ka warqabtid baarlamaankan waajibaadkiisa waa gudan waay waxa jira xildhibaanaha dibadda iska jiro oo shaqadooda aan qabanaynin maalintii diyaaradan soo raacay Nairobi ana u soo socdo maxal lahay xamar markaan fasaxa ka soo laabtay mar aan baxay waxa diyaaradii la saarnaa qof ilahay waxa maqanahay 10 bilood ninka 10 bilood maqan oo shaqadan ka maqan oo loona soo doortay in maxal lahay umadiisa wax u qabto waa arin aad u falxun waay markaan waxaan leeyahay mas'uuliyadda maxal lahay annaga waa la saaran tahay shacabka mataleynaa mar walbana haddana waxa la eedeeyaa mas'uuliyiinta ugu sareysa waxa ka horeey baarlamaankan eediisa ka horeeyay maaha in farmaajo qeyr la eedeeyo baarlamaanka waa eedeysaya saa ka warqabtaan laba qaybood u qaybsan mar walba waa kuwa wasiirra maxal lahay waxa ku jiro wasiirra oo xukuumadda difaacay iyo kuwa wasiirra doonay oo mar walba ayagana mucaarad ah ay naftirkooda hadii wasiirra laga dhiga xukuumadda waa difaaci lahaayeen wardana gaar ha fiirinina dalkiina dadkiina wax u qabta xaalad hadda lagu jiro waa la socotaan nasiib daro way 128 qof inay maanta inta ay joogto inta kale ay jiraan xafladda oo lagu daafuraayo maxal lahay xisbigaas himla qaran nasiib daro aad u weyn waay baarlamaankan la sidiisa saxada idin sheegay waay qaar wasiirro oo xukuumadda ku jiro markii xukuumadda wax laga keenay waa difaacayaan kuwana wasiiray raadinayaano waxa waaye mar walba maxal lahay ayagoo wasiiradaas dana gaar ay wata ayay mucaarad yihiin hadii wasiir laga dhigana saas oo kale waay kuwa kala maalna waa jiraan oo isku mabda ahayn oo kala maqan markaan walaalayaal waxaan dhihi lahaa isku maan noqda mar walba danta shacabka ka weyn ninka maanta inta imaanin oo maqan xafrad ku maqan waxa way lacagtu u qaadanay xaraan waay markaan waxaan soo jeedinaa inay maxaa la dhahay ilaahay ka cabsadaan ummadda ay u shaqeeyaan